maxamed cabdullaahi farmaajo oo madaxweynaadkiisa sharciga ah uu dhamaaday 11 cisho ka hor ayaa dhinaca kale 11 sano kadib waxa uu iska furay maasgara siyaasadeed oo u xirneed taas oo ay korka ugu qornayd wadaniyad, nabadoonnimo, dan guud, dimuqraadiyad iyo dan shacab. kowdii habeenimo ee xalay madaxweynaha waqti uu ka dhamaaday ayaa 4 sargaal oo ay qaraabo yihiin u isticmaalay weerar ka dhacay hotelka Naasa Hablood 2 oo ay degan yihiin madaxweynayaashii hore Shariif Sheekh Axmed, Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan. weerarka oo ay fulisay guutada Gorgor loona isticmaalay hub ay dhawaan ku deeqday dawladda Turkiga ayaa inta loogiya waxaa ku dhimatay 3 askari. ragga weerarka qaaday waxaa ka mid ah Saahid Jareere oo ah taliye urur ay farmaajo heliyiin, Dayax oo ah taliyaha guutada Gorgor oo reer Puntland, Bixi oo ah taliyaha ciidanka dhulka oo ay farmaajo heliyiin iyo Siciid Kambala oo haysta qaybta sirdoonka ee militariga laakiin ah sargaal awood badan ku dhaxlay ciidanka maadaama uu madaxa maamuuska u ahaan jiray farmaajo isna waa reer Buhoodle. afartaninba waxa ay saami qaybsiga 4.5 kaga jiraan dhanka uu farmaajo uga jiro. sababta afartanin ee isku reerka loogu diray weerarkii xalay lagu qaaday madaxweynayaashii hore ayaa lagu sheegay in saraakiisha kale ee madaxdaasi ku reerka ah inay ka cudur daarteen weerarkaas. weerarkii xalay ayaan ku dhammaanin sidii loo qorsheeyay iyadoo ciidankii ilaalinayay musharaxiinta halkaasi degan ay iska caabin sameeyeen ilaa markii dambe ay dib u laabteen kooxdii weerarka soo qaaday. weerarkii xalay ka dhacay hotelka Maida waxaa lagu sheegay inuu ahaa amar madaxweyne. sidoo kale saraakiisha sarsare ee Niza ayaa la sheegay inay wax ka qorsheeyeen weerarka. saakay waxaa lagu waabariistay iyadoo madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday uu magaalada ku soo daadiyay ciidankii ugu badnaa abid. jidadka oo dhan ayaa lagu gooyay gaadiidka dagaalka si aanay dadku u muujin dareenkooda. barqadii maanta markii shacabkii wadooyinkii laga xirtay ayay xubno musharaxiina bilaabeen inay iyaga iyo taageerayaashooda soo baxaan, laakiin markii ay marayaan kilomitir 4 ayaa la huuyay rasaas nool. mid ka mid ah hubkii lagu riday musharaxiinta Xasan Cali Kheyre, Cabdikariin Xuseen Guuleed, Cabdiraxmaan Cabdishakuur, Mustafa Dhuxulow iyo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa waxa uu u gudbay dhinaca garoonka Aadan Cadde halkaas oo ay khasaare ka dhalatay. sidoo kale dibadbax ka bilowday dhanka degmada Cabdicasiis ayay ciidan ka amar qaatay madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday waxay u adeegsadeen rasaas nool. saddexdaasi weerar iyo caburintii saaka lagu sameeyay muwaadiniinta reer Muqdisho ayaa si toos ah dadka u tusay wajiga dhabta ah ee madaxweynihii Soomaaliya ee 4 sano la soo dhaafay. farmaajo oo iska dhigi jiray madluun siyaasadeed, mid dadka u diirnaxa, mid aan colaad iyo qabyaalad aqoonin, mid dimuqraadiyad iyo ilbaxnimo huwan ayaa hal mar iska fayday maaskaradii uu xirnaa 11 sano ee la soo dhaafay. wuxuuna waxaas oo dhan ku bedelay cid hadli karta ma jirto, leema mucaaradi karo, lama banaan bixi karo iyo dastuur ku tuma shacab. saddexdii weerar ee uu qaaday 24 saac ee la soo dhaafay madaxweynihii waqtigu ka dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaajo ayay diblomaasiyiintu ku qeexeen inuu toos u soo afjaray mustaqbalkiisa siyaasadeed ee dalka. sida uu kala hor xeeriyay baarlamaanka Soomaaliya, madaxweynaha si nabada ku dhameystay muddaxileedkiisa ee xukunkana ku wareejiyay si nabada waxa uu noqon doonaa mudane baarlamaan oo aan weligiis dhicin. laakiin sida muuqata farmaajo taas ma heli karo maadaama uu hadda qaatay kaarkii dagaalka. rajada ah inuu mar kale farmaajo madaxweyne ka noqdo Soomaaliya ayay sidoo kale xeeldeerayaashu qabaan inay soo ilaatay xalay iyo saakay maadaama uu u bareeray dhiigdaadin. dad badani waxa ay isweydiinayaan farmaajaha sharci la'aanta dadka ku baabiinaya sida uu waxyeeli lahaa haddii sharciga loo cusboonaysiiyo. duulaan hore oo uu maamulkiisu ka fuliyay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, guriga siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo magaalada Dhuusamareeb ayay dadka qaar isku dayayeen inay dhinacyo kale u saariyaan sida ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Kheyre. laakiin sida muuqata farmaajo waa ninka gacanta ku haysta dabka ee meesha uu doono ku dhajiya. dadka yaqaana waxay sheegaan inuu yahay nin aan tala qaadan oo inuu dadka xukumaahi ay wax walba kala weyntahay ama wax walba u samayn kara. ra'iisul wasaarihiisa hadda jooga Maxamed Xuseen Rooble ayaa awoodi waayay shalay inuu farmaajo ka baajiyo inuu dhiig daadiyo. dad badani waxa ay qabaan inuu farmaajo xira taraaraxay oo uu yeeshay awood dheeri ah tan iyo markii uu meesha ka baxay ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Kheyre oo ay hadda muuqato inuu ahaa ninkii xakameyn jiray hogaamiyaha shakhsiyadiisa dib u sharaxaya maanta. 4 sano ka hor waxaa farmaajo looga soo baxay guri walba oo xamar ku yaala si loo taageero, laakiin 4 sano kadib farmaajo waxa uu diidan yahay in isla guriyihii laga soo baxo iyadoo fariintu ay ka duwan tahay midii hore. banaanbixi ay mucaaradku ku baaqeen ayaa lagu joojiyay caburin iyo ciidankii dawladda, laakiin dadka faaqida siyaasadda waxa ay qabaan inay mucaaradka sidaan ugu badiso marka la eego inay dad uun soo bixiyaan oo ay khudbeeyaan.
faa'iidada ay maanta dhaxleen mucaaradku waa inay Soomaalida iyo caalamkaba tusaan farmaajaha dhabta ah ee aan xeerin dhaqan dawladeed, dastuur iyo nidaam dimuqraadi ah midna. Hadda qof walba waxa uu haystaa laba farmaajo. Waa farmaajihii jilaya siyaasadda 11 sano ee la soo dhaafay iyo farmaajaha saxda ah ee maanta soo bandhigay sida uu u yaqaan dawladnimada iyo dimuqraadiyadda. doorashadii Soomaaliya ee la filayay ayaa hadda u muuqata inay meesha ka sii baxayso. musharax madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed waxa uu sheegay in aanay wax tartan ah gali doonin farmaajana uusan tartami karin, taas oo ka dhigan in aanay doorasho dhici karin. sidoo kale xitaa haddii la tartamo waxaa dad badan u sawiran in aanay musharaxiinta mucaaradku aqbali doonin natiijo walba oo farmaajo 4 sano oo kale ku sii haynaysa filla Soomaaliya, maadaama uu farmaajo dadka kaga yaabiyay habdhaqankiisa dawladnimada. midowga musharaxiinta waxaa loogu baaqay inay sii wadaan banaanbaxa ilaa laga helayo isbeddel dhab ah. madaxweynaha waqti uu ka dhammaaday awood uma heli doono inuu maalin walba xiro magaalada, taas oo haddii uu u bareerana yeelan karta falcelin ka duwan midda mucaaradka. maxay kula tahay adiga?